Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu. Waa walaashiin anfaciyo mar labaad. Maanta waxaan idiin wadaa baasto magaceeda la dhaho vermicelli dessert. Waxa waaye waxa la cunaa after marka afurtid waa iskaga dejinaysaa. Waa cunto la qaboojinayo marka baastada hadda meeshaan ku jirta. Meeshaan waxaa igu jiro caagaan caano 1 litir ah. Meeshaan loosas badan oo soo jijibiyo oo kala nooc ah igu jiro. Meeshaan kale waxaa igu jiro loos cagaaran. Meeshaas waxaa igu jiro 2 qaado camal adiga oo qumbaha shiidan ah. Weelkan baastada ku soo jibsan lahaa inta waxaa igu jiro 2 qaado oo subag ah, sokor koob adiga halfkiis oo sokor camal ah. Kaabka saaid mu buuxo saaid adi baxdano. Intana waxaa igu jiro condensed milk caanihi macaanay igu jiro. Inta maanta idin kormaray waa inta laga sameyn doono insha Allah baastada. Baastada waa taas ayadoo aad u fiina ah bacdaas ku jirto. Marka bacdaan soo fiiqa baastadan soo jabsana saxan ku soo ridana insha Allah. Intana waxaa ii saaran 2 digsi. 1 digsi waxaan ku qandacsanayaa caanaha insha Allah. Caanaha iyago qandac la rabo baastada in lagu kariyo. Marka 1 litir caanaha dhan aan ku shubaaya waayo baastadan waxay qaadanaysaa caano badan ay qaadanaysaa. Bacda dhan ma wada karinayo xoogo yar aan ka reebaya. Inta kale waa karin laakiin bacda dhan hadaa karsanaysid 1 litir iyo bar caano insha Allah ku filan. Iyo ka sii badan baad aragtay inaad sii jilcisid. Caano badan ay u baahan tahay baastadan insha Allah. Intana waxaa igu jiro digsi kale oo baastada ku karsanayay. Waxaan ku soo ridanayaa 2 qaado oo subag ahay. Subagan waa subaga batarka normalka ah. Hadaa rabtay batarka Soomaaliga ah. Subag Soomaali waa ku karsan kartaa kulley dabcan laakiin weli kuma tijaabin. Kiina caraf loo kasii kulley qaadaya insha Allah hadaa ku samaysatid. Marka waxaan sameynaa waa dhalaalinayaa subaga. Aadaan u dhalaalinaa. Markaan dhalaaliyo kadib waan baastada ku shubaa insha Allah. Marka hala soo tijaabiyo maasha Allah baasta aad u macaan. Taraawixda kadib daa maaragtay maasha Allah cuntid cuntada dhan ka dagayso waa kaal arag. Waa ka heli doontiin soo tijaabiyo insha Allah. Kana faa'iideysta. Masha Allah. Kulley subag la loo kala hadin saliid weli kuma tijaabin laakiin subagana mar walba aniga ku karsadaa. Marka subag Soomaali ama subagan labada mid kale sidii markaas idinka aad labadaas aad ka haysatiin insha Allah. Hadana waa ii diyaar. Batarkayga waa ii dhalaalay baastadayda aad u soo jijibiyay. Aan maartay ku korshubanayo. Waa isku gidgidina aadaan ugu shiilayaa oo maartay si fiican subag u soo dhaxgalina. Waa subagii iyo baastadii bas wax kale had igu jiro. Marka waxaan sameynaa si fiican u soo shiila. Waxaa la rabaa baastada hadda saas jaala camal waa inay xoogo soo gaduudato. Baastada dhan la dubo oo maaragtay si fiican la isku dhaxgaliyo. Baastada dhan maaragtay brown laga dhigo sidii gaduud camal inuu soo galaya laga dhigo markaasay diyaar tahay. Marka maasha Allah waa wali waa gidgidinooyaa. Waa kaasa hadda maasha Allah waa soo gaduudiyay. Intaasaa ku filan hadii kala madoow ay noqonay qashayna noqonaysa. Gaduudkaasa fiican saas oo quruxda badan. Kadib marka waxaan ku shubaa caanihigi oo ii qandac. Xoogo yar aan ka gaabsanay inuu zaid iga gubtaan diida. Caanihigi oo ii qandac ku shubana. Caanihi dhan waa ku wada shubay. Marka waxaan sameynayaa maasha Allah si fiican maaragtay isku dhax walwalaaqaya ma isku dhagayso baastadan. Way almost way shiilan tahay soo sameeyay. Marka way
way taqtaqaysaa waxaasoo caanaha ujeedo dhan way laqaysaa way ku dhex karsamee caano badan ay cuntaa baastadaneeto haddaa rabtiin markaa xoogow biyaha iyo waa ku dhex karsan kartiin iyo caano booro kaleeto qofkii caanahan caadiga ah oo normalka aan maaragtay heli kareynin caano booraha ku samaysan karaa insha allah. haddana waxaan ku shubayaa koobkii sokorta ahaa koobka sokorta hadda ku shubay iyo qumbihii aan ku shubay hadda qumbihii shiidnaa darteed qumbahaada jecleen waa ka diin kartaa qasab ma aniga maaragtay extra ku carafsaday maasha allah. qumbaha xoogo yaro caraf uu leeyahay markuu karsamana macaan waa kaaliska arag markay is dhex galaan labadooda isla karsamaan maasha allah. xoogo waa daboolayaa insha allah tacaala sida hadda waxay tusaa caanaha iyo wax walba ay u kala baxsan yihiin ay tusaay haddana waa kaasa maasha allah caanihii almost qaaraba soo ay kusoo karsantay. haddana waxaan ku shubanaa 2 qaado oo caanahan macaan ah maadaama sokorta koob haafkiisa ka dhigana waa ku yara macaynaa haddaa rabtid adiga gasaclana ku shubi kartaa haddaa sweet badan macaan badan aad rabtid yani macaan zaaid usii badan ma rabo waayo koob haafkiisa korona waa ku daray 2 qaadana waa ku daray marka maasha allah. haddaa rabtid adiga hal koob oo sokor ku darsan kartaa sabiib waa ku darsan kartaa oo ku sii maceeyo markaad dajisid markaasaa la socdo walaalahayga qaaliga ka faa'iideysta insha allah. channelka qofkii ku cusub subscribe comment-ka noogu reeba like-ta iyo share-kana waa dhinaceen insha allahu tacaala. soo dhawaada meel walba joogtaan walaalahayga Soomaaliyeed channelkayga cusub ku soo dhawaada maasha allah. baastadeeni hadda waxaan ku darayaa almost hadda waaba noo diyaarba just wixii carcarfiskaan ku darayaa marka hadda heel shiidan aan rabaa inaan ku daro because waxaan alaab oo maaragtay laga rabo waa in cuntada kaa dajiso la qaboojiyo soo inay wax carfaayo kugu socda yihiin aan loo baahan yahay maasha allah. hal qaado heel shiidan camal heelka kaligiis waaye heel shiidan maasha allah caraf kaliya marka qumbihii meeshuu ku jiro heelkii oo shiidan kaaliska arag adduunya waa isla wada carfaysaa markaa cuntidna kaaliska arag waa kasoo sheekeyn doontiin kolley idinkama hor dhici doono kale intii soo tijaabisaa ka horkeeni doonta doo ilaah yiraahdo. baastada saasay diyaar ku tahay baaquliga ii diyaarsan baaquligaygaasaan ku shubanaya insha allah. baaquligii hadda baaqulkaas nadiifka iyo meesha yaalaan ku shubtay talaajada gelinaysiin baastadan 4 saac ugu yaraan 4 saac waa inay kugu jirto talaajada qaybta koro no freezing ma aan meesha barafka ma aan meesha koro waa insha Allah taala 4 saacadood camal waa sida tiramisu oo kale inay qabow si fiican u qabowdo oo maaragtay markaas sida loogu saxuurto dadka qaar way ku saxuurtaan dadka qaarna afurka kadib ay cunaan qof walba sidoo rabo adiga hadii xataa ramadaanka laga baxo casriya ka dhigi kartaa waa adiga choice-kaada ee waqtiga rabtada cuni kartaa marka hadda labadii looska cagaarna korka ugu soo sharaxay loos badan oo isku dardarsan waa ku soo shubay waa kaasa baastadeena saasay noogu soo baxday maasha Allah tabaarakallah waxaan gelinayaa faranjeerka qaybta karo marka sidaas oo la socda ka faa'iideysi wanaagsan haddii aad ka hesheen waa kaasa comment-ka igu soo reeba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.